Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi ayaa ku booriyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya inay ka shaqeystaan shaqooyinka yaryar beddelkii ay shaqo la'aan ahaan lahaayeen. Wariyaha RTN Cabdishakuur Faarax Xigale ayaa warbixintan inoo eegaya. shaqo la'aanta ama baagamuudadu waa helid la'aanta fursado shaqo uu heli waayo qof shaqayn kara haddana aan heli karin shaqada uu rabo. kadib burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo carartay colaadihii ka jiray dalka waxa ay soo galeen qaar ka mid ah wadamada dariska gaar ahaan dalka Kenya halkaas oo ay ku haysato shaqo la'aan baahsan. sida la wada og yahay dhalinyaradu waa udub dhaxaadka dal kasta oo dunida ka jira waana muhiim in qof kasta oo dhalinyaro ah uu helo shaqo uu ku maareeyo naftiisa. haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waa ay ku adag tahay inay qabtaan shaqooyinka qaar waxaana moodaa inay ka faanayaan sida ka shaqaynta timajarista iibinta hilibka iyo wixii la mid ah. haddaba Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi oo ka mid ah culumaa u diinka Soomaaliyeed ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii waxa uu ku dhiirigeliyay inay qabtaan shaqooyinka hoose isagoona sheegay inaysan shaqo ceeb ahayn mid ay doonto ha noqotee. wiilkan dhalinyarada ah wiilkaagan dhalinta yar ee da'da yar ee Ilaahay uu siiyay xooga caafimaadka Ilaahay uu siiyay ee haddana xooggiisa iyo caafimaadkiisa aanan ka faa'iideysanaynin aanan ku shaqaysanaynin ku soo saaranaynin wuxuu cuni lahaa wuxuu cabi lahaa halkuu seexan lahaa gurigu degi lahaa ee doonaya inuu ku tiirsanaado qayrkii in daa'iman gacantiisu inuu gacanta horsado oo uu bariyo tamo oo uu ku noolaado shaxaad ii dhiib wax isii iga bixi ii dhiib doonaya daa'iman in gacantiisu ay hoosayso. waxaan la hadlayo cid kale ma aha oo wiilashiinaan dhalinyarada ee wax soo bartay laakiin haddana aanan raali ku ahayn inay shaqaystaan si ay u ilaaliyaan image-kiisa. gacanta sare waxay ka fadli badan tahay ka khayr badan tahay tan hoosaysa. gacanta sare ee shaqaysanaysa xooggeeda ku shaqaysanaysa caafimaadkeeda ku shaqaysanaysa ee wax bixinaysa taageeraysa qayrkeed waxay ka sharaf iyo cizi badan tahay midda liidata tan la'iimka ah tan baryootamaysa. waxaan la hadlayo waad garateen waa dhalinyaradu wax soo dhammaysay waa dhalinyaradu iskuulaadkii jaamacadaha ka soo baxay ee haddana cilmigoodii shaqo intay ku waayeen shaxaadka ku nool. kabaan baalashayaa aniga dadku waxay leeyihiin laakiin war waxaan waa shaqo liidata hilib baan jarjarayaa kawaan laan ahay laakiin dadku waxay leeyihiin waa shaqo liidata bir baan tumayaa mindiyihii baan samaynayaa waxaan samaynayaa seefihii ayaan samaynayaa laakiin dadku waxay leeyihiin waa shaqo liidata. dhalinyaroy shaqada yaan la yaraysanin ya wanaagga iyo macruufka waxyaabaha wanaagsan xalaasha yaan la yaraysanin. allaha ka yeelo walaalka inaad dhoola cadeen adoo faraxsan inaad qaabishid hala shaqaysto caafimaadka lagu shaqaysto xoog ha lagu shaqaysto dad sare aan noqono gacan sare aan noqono allah idin barakeeyo. shaqadeedan si wadanaya ilaahay waxaan ka bariyay mustaqbalkeena allah. Cabdishakuur Faarax Xigale RTN TV magaalada Nairobi.